cabdiraxmaan maxamuud caydi sawteeko duqa caasimadda Hargeysa ayaa shaaciyay in magaalada Hargeysa ay soo gaareen daamurkii ugu badnaa ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa ay soo iibsato daamurkaasi oo loogu talagalay in lagu dayactiro jidadka magaalada korna loogu qaado bilicda caasimadda Hargeysa duqa ayaa hadalkan ka sheegay mar uu kormeer ku sameeyay wadooyinka dhexmara bartamaha magaalada gaar ahaan inta u dhaxaysa wadada koowaad iyo wadada labaad oo maalmihii ugu dambeeyay dowladda hoose caasimadda Hargeysa shaqaalaheedu halkaasi ay ka wadeen oo lagu banaynayo meheradaha sida sharci darrada ku soo galay wadada waxaana uu xusay maayarka caasimadda Hargeysa in ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan wadooyinka caasimadda Hargeysa isagoo bulshada ugu baaqay inay garab istaagaan shacbiga caasimadda waxaan ugu bushaaraynayaa in daamurkii ugu badnaa ee abi dowladda hoose soo iibsato oo ah 35 container iyo 30 container 60 container inay soo gaareen magaalada Hargeysa shaqooyinkii wadooyinka oo dhan lagu wadi doono waxaan leeyahay dhinaciina haday ka baxda mooyaane dhinaca dawladda hoose waa ka diyaar wadooyinka suuqa ka bilaawa wada kastoo xaafadeed baa ka bilaawa kuwii kabkabay baa ka bilaawa waxaan leeyahay dadku inay wax la qabsadaan dawladooda hoose ayaa wax lagu noqon karaa waxa halkan ka socday ololihii suuqa dhexe qaybta koobaad oo lagu banaynayo qaybta labada wado u dhaxaysa wadada number 1 iyo wadada number 2 feeskaas oo ay buutolomino hadhayo ay qaybtii ugu dambeysay hadhay oo ku soo gaboobi doona halka iyadoo la sameyn doono in dhismihii wadooyinkaasina ay ku xigaan dhanka kale maayarka caasimadda Hargeysa waxa uu fariin u diray ganacsatada caadaysatay inay wajahadaha tirayaan iyo ganacsatada suuqa waaheen waxaan u baahanahay waa la baneeyay imika dad baan arkaya gawaadhi alaab ku dhex sita dad baan arkaya caynka waxaan arkaya kuwa meeradooda sii danaynaya wajahadooda kireen jireen waxa la ganaaxi doonaa sida sharcigu ku yaala maanta markaan soo banaynay number bay yeelanaysaa dawladda hoose number ka meerada ka soo hadli weyda ee horteeda wax la dhigo iyada lagu ganaaxaya anagu kaariyoonaha yeen meenu qofka wajahadiisa kireynaya ayaan wax ka qaban doonaa waxaan leeyahay dadka in wada shaqayn iyo magaalo qurux badan ay noo hirgasho aynu sameeyno in badan waa isla saagnay wixii suurtagal ah waan isla ogolahay laakiin wixii saayida isla moogulin xaraadhuudha baahi way taala laakiin se laamidan kalena inaynu ka wada dhigano wada la wada istaago ma soconayso haddii aynu meelihiisa ribadaha u xidhnay dadkii waxa weeyaan iyo shaqaaqle ma noqonayso halkaana imika suuqa bacadlaha marka halka la dhameeyo suuqa bacadlahana weyn wadooyinkiisa la wada baneeyo noqon mayso in hantida quraarkiisa haysataa ay ku dudunto qof wada taagan oo kaaryoona ugu dambeyntii duqa caasimadda Hargeysa waxa uu sheegay in maamul daadejin lagu sameeyay dowladda hoose caasimadda Hargeysa waxaan halkan uga mahadnaqayaa maamul daadejin baanu sameeynay agaasimayaashii iyo gudoomiyeyaashii way soo kala bixi doonaan annagu shaqada kormeer iyo waxaan ku leenahay imika iyo dabajoog iyo maxaa qabateen shaqadiina waxaan u dhiligeedgeeyno oo u wareejinay in agaasimayaasha iyo gudoomiyeyaashu qabtaan nin walba xaafadiisa lagu la xisaabtami doonaa nin walba waaxdiisa lagu la xisaabtami doonaa waxay noqon doontaa shaqadii maamulku inaan xaga dusha loogu imanay hoos qof walba halkiisa iyo xaafadiisa loogu tago waxaan leeyahay dadweynahana inaa la shaqeysaan gudoomiyeyaasha inaa furataan in wixii ay amraan inaa shaqadii wadooyinkana xaafadaha laga soo dhiso wabillahi tawfiiq aad baa mahadsantahay. Assalaamu calaykum. Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.